Jaariyadda Soomaaliyeed ee Ahlusunna wal Jameeca ee ku dhaqan magaalada Amiton gobolka Alberta ee waddanka Canada ayaa shir ay isugu yimaadeen kaga hadlay xaaladihii u dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya siiba dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ee u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya kuwa Galmudug iyo Ahlusunna wal Jameeca waxaana ay baaq u direen dhinacyada dagaaladu dhex mareen in la xoojiyo nabadgelyada magaalada lagana fogaado in dagaalo mar kale ay ka dhacaan magaalada Guriceel sidoo kale waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqeen in gurmad degdeg ah loo sameeyo shacabka reer Guriceel ee ka qaxay magaalada kuwaas oo uu saameeyay dagaaladii maalmahan ka soconaya halkaasi yaa dagaalka kicinaya oo hogaaminaya dagaalka waxaa kicinaya oo hogaaminaya dadka aaminsan fikirka wahaabistiga dadka magaca Ahlusunna wal Jameeca uu dhibahayo dadka ayaa dagaalka kicinayay dadkaas ayaa dadkoodii baabiyay 100,000 oo ruux waad maqlaysay wasiirkii hore ee Galmudug waa ninkaan sida dadka meesha jooga ninkaas uu aqro laakiin ma yaqaadan taladiisi iyo aqligiisa midna ma yaqaadan wasiirkaas waa kii uu sheegay 100,000 baa banaanka u baxday haweenkii baa banaanka ku umuray caruurtii aan weligood baadiye arag baa banaanka mas iyo abeesa ku wada cuneen waad ogeeyeen dhibaatada meesha ka dhacday waxa loo sameeynayo waa magaca Ahlusunna wal Jameeca kali ayaa dhibaya marka waxaan u sheegayaa dadka Ahlusunna wal Jameeca ee ku nool waqooyiga Ameerika khaasatan Mareykanka iyo dadka Yurub jooga inay arrinta ka dhidhiyaan inay isgarabsadaan inay kacaan inay dadka u gurmadaan sidii maaragtay kuwa dhaawacana loo daaweyn lahaa kuwa banaanka ku dardareysana maaragtay dhulkooda ugu soo noqon lahaayeen ha loo kaco waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga Ahlusunna arkaysaan maqlaysaan dadka isku laynayso iyo ubadka ay madaxa isku gelinayso ayadoo danaheeda gaarka ku fiirsanaysa inay joojiso waxaan kaloo baaq u dirahayaa ciidanka leeyahay waa ciidan federaal iyo waa xoog dal anigu waligay ma arag xoog dal oo caruurtiisa ku duulaya maana arag laakiin haddii la qaldana toobadkeenku waa bannaan yahay waxaan leeyahay si degdega dadkaas dadka islaamka Ahlusunna iyo adduunka oo dhan waa inay dadkaas u gurmadaan oo gacan la siiyaa I am telling to Turkey and United States and whoever gives a funding for this government to stop their funding to support this government because they killing their own civilians, their own ulama-uddins, they killing their children. If that's what they support for the government, that is fine. They can support it, but if is that halkan uga diraya marka baaq waxaan leeyahay dawladda waddanka ka talisa wad abtirsatay waxa ku abtirsatay inaad garab si aan caadi ahayn aad garab u siinayso qolada la yiraahdo wahaabismka ah culimadii Ahlusunna ahayd ee waddanka boqolkiiba dawladda waddanka sunniga ahaa inaad gumaado oo maxay diintoodii iyo dhaqankoodii ay dhalan rogmaan baad garab ku siinaysaa waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo culimada oo la dhibo ama la weeraro laan waxa la laayay waa dadkii diinta xabaarsanaa waa dadkii xufaadda ahaa waa dadkii la rabay inay diinta dadka gaarsiiyaan dadka la gumaaday ee meesha ku jirtay loo soo weeraray waa noocaas waxaan xasuusinayaa waxay tahay dawladdii hore ee Soomaaliya taariikhda marka culimada ay laysay wixii dhacay waa la ogaa tiiba waxaad moodaa mar labaad inay soo noqotay oo culimadii la laynayo waxaan kaloo rabnaa inaan fariin u dirno dawladda Soomaaliya oo runtii la doonayay inay noqoto dawlad u siman shacabka Soomaaliyeed kan mucaaradka iyo midka muxaafidka ah laakiin noqotay dawlad hal dhinac la jirsata oo dhinacii kale iyo shacab weynihii meesha ku baabay ama ku barakacay aan waxba ictibaar aan siinin waxayna taasi ka muuqataa habdhaqanka ay u dhaqantay oo ataa ay gaareen heer la yiraahdo maamulka meesha ka jira Galmudug oo yiraahdo isbitaalada laguma daweyn karo gobolada ama degmooyinka ka kooban tahay Galmudug culimada dhaawacooda laguma daweyn karo oo lama geey karo taa marka waxay ku dareensiinaysaa inuu yahay waxa meesha ka socdaahay arrin markii laga tago mucaarad iyo muxaafid laga tago inay tahay arrin ku saabsan caqiido ama dabarjar la dabarjarayo
culummadeennii ahlusunna waljamaaca ama dadkii ahlusunna waljamaaca oo ah dadka Soomaaliyeed 99% dadka caqiidada haysta ay yihiin inna ahlusunna waljamaaca meel kastoon ku nool nahay in dadka halkaa ku nool ee isugu jira culummo iyo caamo loo geystay dhibaato oo la dhibay la barakiciyey iska dhaafin gargaar loo fidiyay xataa gargaarkii isbitaalada u fidin lahaa laga hor istaagay. Aadan Xasan Aadan, Universal TV.